maanta taariikhdu tahay 16 bishii 6aad 2016 waxaan ku faraxsanahay inaanu daahfurno raashinkii loogu talagalay gobolka Gabiley raashinkaas oo tiradiisu dhan tahay 950 qoys oo loogu talagalay dadka abaaruhu saameeyay jilicsan leh waxaan jecelahay inaan mahad celiyo maayirka degmada Gabiley sida quruxda badan leh iyo maayir ku xigeenka iyo tiimka dhamaantoodba sida sharafta iyo maamuuska leh ay noola shaqeeyeen waxaanu maanta ku daahfurnaa magaalada Gabiley oo 350 aynu ku qaybinano iyo kala beedho sidoo kale aanu ka qaybin doono 100 qoys dadka waxa soo xulay xaafadaha magaalada Gabiley waana dadkii ugu jilicsanaa qof walba raashinka loogu talagalay inuu ku fadhiistay waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa gudoomiyaha hay'adda diyaar garowga afooyinka oo isaguna mar walba ku hawlan dadka jamhuuriyadda Soomaaliland dadkeena jilicsan leh abaaruhu saameeyeen in raashin la gaarsiiyo marka raashinka waxaanu sidoo kale aad iyo aad ugu mahad celinayaa dawladda Sacuudiga soo bixisay dadkeena xaalad adag bay ku jiraan oo sanadka roobabshay aynu filinayna way yar yihiin xaaladuna aad iyo aad buu adag tahay intaasi waxa uu noqon doontaa dhiig joojin waxaanu se laakiin qiranahay in dadkeena baahidu badan tahay cid kastoo caawinaysa ama hay'adaha caalamiga ha noqoto ama cid kastoo dadka dareynaysa ha noqoto waxaanu jecelahay in la soo caawiyo waxa maanta aanu gaarsiinayna wax aad u yar farguudkooda u yahay waxaana jecelahay inaanu mahadnaqo cid kastoo nagala qayb qaadatay oo gudoomiyaasha xaafadaha ay ugu horeeyaan inay soo xuleen dadka iyo sidoo kale tuulooyinkaanu gaarsiin doono iyaguna heer tuuliyaashu ay soo xuleen waxaanu sidoo kale u mahad celinayaa gudoomiyaha gobolka oo isaguna qorshaha iyo shaxdan raashinka ku qaybinano oday ka ahaa cid kastoo hawsha nagala qayb qaadatay waanu mahad celinaa ujeedadu mar walba waxay tahay dadkeena jilicsan leh inaynu la dareen noqono wixii la hayo la gaarsiiyo xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland taas ka go'an shaqaaladeeda waanu sii wadi doonaa dadkeena aynu ku taakulaynano ilaahayna waxnu ka baryanaa raxmadiisa iyo roobka inuu inoo shubo gacanta ilaahay baa lagu baahi baxaa inaguna bulshada waxaynu u baahanahay inaynu isku gurmano dadkeena jilicsan la dareen noqono u naxariisano dawladda hoose iyo maayirka hogaaminayna aad baan ugu mahadnaqayaa sidee mar walba dadka ugu dhibirsan yihiin salaamu calaykum raxmatullaahi barakaatu waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa maayirka magaalada oo nagu daba joogay naguna ilaalinayay afartayda xaafadood cidaanu soo qoraynay inay yihiin cidii mudneed in la qoro oo la siiyo raashinka ay keeneen hay'adda Netford dhammaantayo anigoo ku hadlay afarta xaafadood afkooga waxaan uga markacayaa saddexda gudoomiye kaleba inay qoreen cidii ugu mudneed tiimka agaasimayaasha ilaa saaka salaadii subax hawsha nagula foogana halka waxaan ugu mahad celinaynaa dawladda hoose ahaan hay'adda Netford oo hay'adda diyaar garowga mas'uuliyinka waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa sidoo kale Sacuudi Carabiya oo iyadna raashinkan ugu talagashay dadka abaaruhu saameeyeen kale dalkeena waxa ka jira xaalad adag oo dhinaca abaaraha ah dad badan oo soo barakacay oo magaalada degan baa jira oo ay abaarahaas ay saameyn ku yeesheen wixii maanta laga gaari karo ayaa halkan looga qaybinaya insha Allah bismillaahir kariim runtii aad iyo aad baan ugu faraxsanahay ka degmo ahaan ama ka maamul ahaan in deeqda raashinka ah saaka shanta xaafadood ee Gabiley ka kooban tahay loo qaybin doono waxaan uga mahadnaqayaa boqortooyada Sacuudi Carabiya oo noo soo marisay hay'adda Netford soo gaarsiisay dawladda hoose annaguna waxaanu runtii ku salaynay liiska danyarta ah ee noo diiwaan gashan shanta xaafadood ayaanu runtii ku salaynay oo nu qaybinay kaararkii marka aad iyo aad baan runtii ugu faraxsanahay ka maamul ahaan soo dhaweynaynaa waxay daaran tahay in danyarta la gaarsiiyo jilicsan leh raashin kaas oo lagu talagalay in wax laga qabto abaaraha ama dadka danyarta ah ee u baahan marka runtii waxaan rajeynayaa in noqon doonin markii koobaad ay noqon doonto waxa weeyaan marar kalena insha Allah soo gaarsiin doontaan ka maamul ahaan diyaar baan nahay mar walba inaan kala shaqeyno waxaynu halkan u joognaa daahfurka qaybinta raashin 950 oo gobolka aynu wajigiisii koowaad aynu ku daahfurano magaalada Gabiley halkan lagu qaybin doono afarta xaafadeed ee magaalada iyo magaalada kala beed 450 qoys raashinkood raashinkaas deeqdaas oo inaga soo gaadhay hay'adda diyaar garowga afooyinka iyo kaydka raashinka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland oo halkan wakiiladii gobolku ay nagala joogaan oo Siduuhi iyo Maxamed Cabdi Cumar ay nala joogaan aad baan runtii uga mahad celinaynaa ka mas'uuliin ahaan
inay deeqda gobolka soo gaarsiiyaan deeqahan waa nooc markoodii koowaad ahayn inay marar badan hore runtii ay soo gaarsiiyeen maadaama xilli runtii adag oo abaaraa guud ahaan dalku ku jiray in loogu talagalay in ay jawaab u noqoto hordhaca in kaalmadan dadka la gaarsiiyo aad baan runtii aanu hay'adda uga mahad celinaynaa dadaalada kala duwan ee runtii ay hayaan ee guud ahaan qaranka u hayaan aad baan runtii uga mahad celinaynaa cid kastoo iyagana ka taakulaysay inay deeqdan ina soo gaarsiiyaano sacuudiga soo diray oo ka mid yahayna waanu mahad celinaynaa sidaa la sheegay runtii baahida iyo xaaladaha dee guud ahaan gobolka ku jira marka la eego dee waxa weeyaan wax badan ka tari mayso haddana hadba wixii la helo waa in sida ugu fiican loo maamulo loona maareeyo waxaan u mahad celinayaa gudoomiye ku-xigeenka degmada ku-xigeenka degmada oo isaguna hawshan iska xil saaray sidii loo soo xuli lahaa dadka ugu habboonaa ee kaalmadan ay gaari lahayd isagoo la kaashanaya xaafadaha iyo xaafadaha kala duwan ee degmada iyo maamulka kala baydh aad baan runtii uga mahad celinayaa maamulada xaafadaha kala duwan ee iyagana halkan ku sugan inay si fiican iskaga xil saareen in ay soo xulaan dadkii ugu mudnaa ee kaalmadan yare kooban runtii dee ka heli lahaa ka faa'iidaysan lahaa aad baan runtii iyagana uga mahad celinayaa howlwadanada kale goobta ilaa saaka ku sugnaa ee ciidamada amnigu ka mid yihiin iyagana runtii waan mahad celinaynaa waxaan runtii xaaladaha noocan kaga bixi karnaa iskaashi isku xidhnaan iyo intayna jilicsan inna caawino oo qabcaha isku qabsano xaaladaha noocana runtii dee waxbaynu ka baranaynaa casharadaan ka baranayna waa iskaashi inaynu kaga baxno marka innaga laftirkeenu inaynu isku noqonno oo sideen dadkeena intay nagu hareeraysaneen wax tari karana sidaan u tari lahayn inaynu bulshadeenna waxaan ku gawaabinayna in dee la iscaawiyo goobtan aanu ku sugannahay waa magaalada kalabaydh oo aanu soo gaarsiinay 100 qoys oo loogu talagalay dadka jidicsan leh abaaru saameeyeen haddaanu hay'adda u diyaargarowga aafooyinka kaydka raashinka qaranka nahay 950 qoys ayaanu gobolka Gabiley maanta ka daafurnay iminkana waxaan ku sugannahay magaalada kalabaydh oo 100 qoys ku qaybinano waxaan u mahad celinayaa gudoomiyaha iyo dawladda hoose degmada Gabiley oo uu nagala joogo maayir ku-xigeenku sida sharafta iyo qiimaha leh noola shaqeeyeen una soo xuleen dadkii jiricsanaa ee ugu nuglaa aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa annagana wax naga go'an mar walba dadkeena jiricsan la wixii la awoodin la gaarsiiyo xaalada adaga abaareed baa lagu jiraa waxaan aad ugu mahad celinayaa dawladda Sacuudiga oo raashinka naga soo caawisay iyo sidoo kale gudoomiyaha hay'adda u diyaargarowga aafooyinka oo mar walba nagu dardaaray inay dadkeena wax gaarsiino kolba wixii la awoodo dadka jiricsanna garab loo noqdo dawladda hoose oo sida dhow noola shaqeysay inta hawlahan ku jirin aad baan ugu mahad celinayaa barasaabka gobolka Gabiley aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa iyo cid kasta hawshan nagala qayb qaadatay qof walba raashinka loogu talagalay sidiisuu ku fadhiistay maanta waxaan soo gaaray 100 qoys oo dadka tabaalaysan jiricsan loogu talagalay raashinkaas oo aan qayb ka ahayn degmada ay ka fulinaysay hay'adda diyaargarowga aafooyinka Northford waxa runtii aan uga mahad celinaynaa maayirka degmada iyo hay'adda diyaargarowga aafooyinka oo si xushmad leh noogu keenay waxaanay noo noqotay fursadii koowaad ee aan uga faa'iideynay dadka jiricsan leh waxaanay u xireen sidii ugu quruxda badneed ugu munaasabadayd uguna hawsha yareed waxa farxad weyn noo ah inaanu ka jawaabno qaybo ka mid ah baahiyaha jira taasi oo keentay abaarta baahan ee sanadka ka jirta dalka iyadoo lagu jiro xilliga guga ayaad arkaysaa haddana inayna beeruhu iyo ayna qodnayn dadkuna ayna wax badan ayna haysan marka waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqanaa hay'adda diyaargarowga iyo kaydka raashinka qaranka sidoo kale waxaan u mahadnaqanaa maamulka degmada ugu horeeya maayirka ku-xigeenka iyo dhammaanba shaqaalaha dawladda hoose sida qiimaha leh ee qadarinta leh ay uga warhayaan dadkooga waxaan joognaa magaalada Kalabaydh oo ka qaybinayno raashin ayna soo gaarsiisay hay'adda Northford ee qaranka oo ugu horeeyo isuduwaha Northford Cabdinaasir iyo isuduwa ku-xigeenka halka waxa joogo kale madaxa ka hortaga mas'uuliyadda dawladda hoose iyo gudoomiyaha Kalabaydh oo runtii goobjoog ku ah raashinka qaybintiisa ka maamulaha aad iyo aad baan ugu mahadnaqanaa Northford maamulka heer qaran iyo heer degmo heer gobol raashinkan wuxuu soo gaaray dadkii dayartahay ee u baahnaa annaga oo runtii liiska dadka dayarta ee u baahan ku diyaarinay xaafadan
oo naga wakiil yahay gudoomiyaha kala bayd marka aad iyo aad baan leeyahay ugu mahadsantiin baan leeyahay qof kasta oo ka qayb qaatayna waan u mahadnaqayaa kullay dayartu aad bay badan tahay laakiin wixii intii laga gaadhi karayay maanta loo qaybinayaa marka horena waxaan soo qaybinay 4 xaafadood ee magaalada ka kooban tahay Gabiley maanta kala bayd baan joognaa marka raashinkani waa raashin wax weyn ka tari doona dadka danyarta ee dawladda hoose gacanta ku hayso liiskooda marka waxa lagu mahadnaqaynaa runtii hay'adda Narford oo mas'uuliyiinta gobolka ugu horeeyaan